urur siyaasadeedka horseed ayaa maalintiisii labaad magaalada Berbera ku soo bandhigay isku soo bax ballaaran. Boqolaal ka mid ah taageerayaasha urur siyaasadeedka horseed ayaa iskugu soo baxay khayriida magaalada Berbera, halkaas oo ay kala soo qayb galeen mas'uuliyiinta ururka horseed ee gobolka Saaxiil. Ugu horreyntii halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha ururka horseed ee gobolka Saaxiil, Cabdiqaadir Casoowe. inaynu waxa weeyaan dareen shucuureed u muujinayno waxa weeyaan inaynu xoog iyo muruq iyo maalba ku garab taaganahay urur siyaasadeedka horseed ha guulaysto allahu akbar. cabdilaahi waxa weeyaan mujaahidkii u soo halgamay waddankan waxaanu ku leeyahay magaalada Berbera xaq buu ku leeyahay. waxa weeyaan waa inaynu waajibkiisa gudnaa, waa inaynu haddii ilaahay idhaahdo aynaan cid la simin. waxa weeyaan allahuma salli calaa maxamed. xisbiga kulmiyana waxa weeyaan madaxdeena sharafta le sayna amartay waa urur siyaasadeed. waxa weeyaan xisbiga ku lamaana waa kulmiye, waan la shaqaynaynaa. waxaan idin leeyahay horseed ha guulaysto, cabdilaahi darawal ha guulaysto, dhammaan Somaliland guul baan rajaynayaa, guul iyo gobonnimaan inoo rajaynayaa. codka aynu siino cabdilaahi aynu dooranno. cabdilaahi waa hogaamiyihii habsamida gobolka Saaxiil ku naalooda soo dhiciyay. waa ninkii maalintii aynu asramay gashay gobolka Saaxiil ama guud ahaan Somaliland ee Somaliland xorowday. waa ninkii u badheeray 300 oo baabuur oo ay fagash ka soo kaxaysay gobolka Maroodijeex. waa ninkii dheenta u galay, waa ninkii diiday inuu gaari dhaafo oo ay Saaxiil gubowdo ama halgamayaashii Saaxiil ay halkaa ku madoobaadeen. waa ninkii u guntaday reer Saaxiil, waa ninkii Saaxiil xoreeyay si gaara, waa ninkii Somaliland dhidibada u taagay, ciidamada qaranka aasaasay. dhaqashu kugu dhabar jabay, nina dhuunu ku dhex joogaa. cabdilaahi abaal badan buu ku leeyahay Somaliland. marka inaynu codka siino wuu istaahilaa. haddaynu nahay gobolka Saaxiil mujaahidku xaq badan buu ku leeyahay. waxa weeyaan ninkii aasaasay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland waa ninkii ciidamada dhidibada u aasay. marka xaq badan buu ku leeyahay mujaahidku. haddaynu nahay gobolka Saaxiil waa inaynu guntiga dhiishis ka dhignaa soo saarnaa mujaahidka. labada mujaahidda muuse biix cabdilaahi xuseen iimaan. marka insha allah aad iyo aadna wada mahadsantihiin. haddaynu nahay gobolkii Saaxiil waxaynu doonaynaa inaynu u hilino maanta cabdilaahi darawal oo Saaxiil xaq ku leh oo mujaahid ah, isagoo ku suntan mujaahidiintii u soo dagaalantay dalka, ku suntan mujaahidiintii u soo dagaalantay dalka. waxaynu ku farteena aynu ugu ridaynaa cabdilaahi darawal. ma ila qaadateen? codkiina ma siiseen? berberay marmarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen. waxaynu ku inoo ballana inaynu cabdilaahi soo saarno gobolka Saaxiil oo aynu farteena siino, isaga iyo xisbiga kulmiyaba aynu siino farteena. xisbiga kulmiyana u codeeya cabdilaahi darawal la siiyo codka. ururkiina sharafta ee aabacadka u xamiisheen, ee lugta u xamiisheen, ee u soo taxsiisheen, ee meel kastaba uga timaadeen ayaa walaalayaal idinka mahad celinaya. walaalayaal ururkeennu waxaynu leenahay marka hore jamhuuriyadda Somaliland ha noolaato, marka labaad ha noolaato, marka saddexaad ha noolaato, ha midowdo ha israacdo. walaalayaal haddaynu nahay gobolka Saaxiil taageerayaasha ururka horseed waynu ku mahadsanay barnaamijkan aynu isugu soo barnaamijnay. halkan aynu taageeradeena iyo ciidadeena ku muujinay. waa inaynu maalinta codbixinta sidaa iyo si ka daran waa inaynu bacadka u xamilno oo ugu soo baxno. walaalayaal waa laba cod, qof walba muwaadin iyo laba cod buu leeyahay. codka hoose waxaa siinaysaan cabdilaahi xuseen iimaan, codka sarena waxaa siinaysaan madaxweyneena sharafta leh muuse biix cabdi. si wanaagsan ayaa loogu soo baxay. haddaynu nahay reer horseed
waxaynoo ballana 13 bisha 11 inaynu ku hubsanno sanduuqa nin walibana 10 cisho haray kaarkiisii uu gacanta midig ku soo qabsado qofna inaanu qof ku hadlaynin kaarkiisa nin waliba kaarkiisii uu gacanta midig ku soo qabsado hebel baa iga hayay meel buu iisii yaalay hubka laysku dilaa ama laysku gumaadayo waa kaarka xabadna maaha qori maaha midi maaha waxa lagu kala adkaanayo waa kaarka qof walba kaarkaagii gacanta midig ku soo qabso maanta mooye 9 shoo kala haray markaa diyaar garow nin walba halkii aad ka qaadatay kaarkana ku dhawow meel kastoo ay tahay sanduuqa lagu hubsado reer horseed haddaan nahay waxaanu isku daabanay xusbiga kulmiye gacantaana waxaanu ku dooranaynaa madaxweynaha gacantaana ururka horseed baanu ku dooranaynaa oo halkan laga sii jeediyo waa nin ammaano weeyaan wuxuu ku ammaanan yahay waa ninkii dib u heshiisiintii reeraha ummaddu markii ay islaayeen ee ummaddu wakhtigiina cigaal dib u heshiisiinta ninkii lambarwan ka galay weeye ninkii ciidamada Somaliland dhidibka u aasay weeyaan markaa ninkii duurka u galay ee aynu wada garanayno ee kaleecad u cuntay abgurida u sigtay ee ay haddii allaba ku reeyahay injirtu u gashay waddanka la yidhaahdo Somaliland iminka isbeddel sheegayaani maanta isbeddel maaha laakiin waa kala doorasho laakiin wakhtigaasay isbeddel ahayd sidaa daraaddeed waa dadkii isbeddelkan aynu maanta ku nool nahay inoo sameeyey weeye cabdulaahi raggii dhaliyey weeye isbeddelka aynu maanta ku nool nahay ee Somaliland ee magaca Somaliland sursuurta ka soo saaray sursuur baa laga soo saaray magaca Somaliland raggii sursuurta ka soo saaray weeye cabdulaahi inaynu xisbi gaarsiino ayaa inaga ballana haddaynu nahay Somaliland reer berbera annagu waanu ku ololaynaa anigu waxaan ahay xisbiga kulmiye lama odayaasha u cadcad xisbiga kulmiye ee gudaha iyo dabadaba ka ololeeya baan ahay codka labaad waxaan kula ballamay magaalo kasta iyo tuulo kasta iyo degmo kasta codka labaad inay cabdulaahi darawal siiyaan idin kale waxaan idin leeyahay haddii aad tihiin ururkan inaad siisaan isuboodaa la yidhaahdaa isbahaysi bay baratay oo ay ka hadashaa oo iyagoo ishaysta oo marna xirsi la haysto marna xaashi la haysto ayay yidhaahdaan isbahaysi baanu nahay teenna maxaa la yidhaahdaa isuboodo maxaa inaga ballanay inaynu isboodada soo saarno oo aynu soo saarno labada mujaahid walaalayaal waxa weeyaan annagu waxaanu xalay baanu magaalada nimi waxaanu idinka nimi xagga iyo magaalada Hargeysa gobolka Saaxil iyo bahweynta urur siyaasadeedka horseed ayaanu nimi maanta waa xafladeennii waa campaign-keena maalintii ugu dambeysay insha Allah waxaan ka codsanayaa inaynu ku guuleysano waxa aynu doonayno oo ah inuu ururka horseed noqdo xisbi madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland uu mar labaad noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland waxaynu dooranaynaa oo aynu xisbi ka dhigaynaa ururka horseed madaxweynena waxaynu ka dhigaynaa mudane Muuse Biixi Cabdi dhammaan waxa weeyaan waxaynu kala dooranaynaa doorasho dhacaysa dalka ka dhacaysa 13 November doorasho dalka ka dhacaysa doorashada dalka ka dhacaysa waxa weeyaan waxa la kala dooranayaa taariikh iyo taariikh laan baa la kala dooranayaa
taariikhiya taariikh la'aan baa la kala dooranayaa Somaliland waxa laga soo aasaasay meel adag bay ka timi Somaliland rag baa u dhintay hooyooyin baa u asay u qaaday hooyooyin baa u goblamay waxaan ku dhahday mujaahidiin baa u dhintay waxa weeyaan dalkan halka laga keenay leeydiin sheegi maayo daayartuna way ogaan doontaa Abdullaahi Xuseen Imaan Darawal oo gudoomiyaha urur siyaasadeedka horseed iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxay ka mid ahaayeen halyeeyadii Soomaaliland ee keenay maandeeqdan aynu ku raaxaysanayno iyo dalkan aynu maanta aynu joogno kuwii keenay weeye ilaahay waxaynu ka baryaynaa labadaba inuu guuleeyo ugu horeyn waxaan ku bogaadinayaa bahda reer Berbera saaka iyadoo midix kulayl ay tahay inay goor hore madasha yimaadeen si ay ururkooda horseed ee uu hogaaminayo Mujaahid Cabdillaahi Xuseen Imaan Wacays Darawal ay madasha u yimaadaan oo ay u muujiyaan inay taageero weyn u hayaan walaalayaal idinkoo aad iyo aad u mahadsan waxaa laga hadlay oo mas-uuliyiintii ugu horreysay ka hadleen in isbahaysi ay wadaagaan urur siyaasadeedka horseed iyo xisbiga kulmiye talow isbahaysigaasi ma mid daneed baa ma mid dan kooban baa maya waa isbahaysi qaran weeye danta qaranka jamhuuriyadda Somaliland ayaa gashay in halgamayaasha murashaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi ku-xigeenkiisa Maxamuud Xasan Sacad Saatin gudoomiyaha xisbiga kulmiye Maxamed Kaahin Axmed iyo gudoomiyaha urur siyaasadeedka horseed Cabdillaahi Xuseen Imaan danta qaranka ayaa keentay inay isbahaysi siyaasadeed oo qaranka Soomaaliland u adeega ay sameeyaan oo isu kaashadaan difaaca qaranka midnimada iyo wadajirka jamhuuriyadda Somaliland iyo geedi socodka ambaqaadka horumarka qaranka walaalayaal doorashada soo socota ee 13 Noofambar dhacaysa ee maanta haddaynu horseednahay aan maalinteedii labaad soo gabagabaynay doorashooyinkii hore Somaliland way ka adag tahay weji weyn oo ka duwan bay leedahay muwaadiniinta waan hoosaan uga calaamadinayaa waxaan daawanayaa habeen dhexdaasa waa doorashada koowaad ay faragelin toos ku leeyihiin cadawga jamhuuriyadda Somaliland oo raggii aanu laascaanood isku dilay G21 loo odhan jiray ay natiijadeeda sugayaan waa doorashada qura ee aanay qarsanin cadawga Somaliland inay murashaxiinta tartamayo inamadeenii ah oo mid waliba xaq u leeyahay inuu talada dalka qabto iyo inuu talada dalka u tartamo cadawga Somaliland qaybo ka mid waxay olole ugu jiraan oo aanay qarsanin oo ninkayna camal leeyahay ka mid yahay inuu raado Muuse Biixi Cabdi hadduu doorasho qabtana uu dhacaya hadduu qaban waayana uu dhacaya ina camay oo ku jira guddiga G21 waxaan u sheegayaa Muuse Biixina mar labaad dooranayno ficilada ay sameeyaan dartood inuu soo noqonayo qaranka Somaliland inuu mar labaad hogaamin doono waanu u sii bushaareynaa waana ka nixi doontaa ilaahay idinki maxaa markaa la doonayaa inamada tartamaya waa inamadeenii laakiin ninka cadawga Somaliland dhibsanayo ee uu guuldarradiisa saadaalinayo ayaynu guushiisa taageeraynaa taasaynu ka shaqaynaynaa waa inaanay naga qaldamin codka halkaynu ku ridayno iyo ulajeedada aynu codaynayno iyo waxaynu codka u bixinaynaa ma aha gudaheenna tartana laakiin waa doorasho aynu doonayno inaynu ugu quusgeyno cadawga Somaliland ee dibadda kuwa dagaalka joogtada ah qarankeenna ku haya faragelinta ku haya ina kala furfuraya duulaanka inagu haya dagaalada aynu wada galay kuwaasaynu doonayno inaynu ka nixino oo aynu muujino inaynu soo jeedno inaynu midaysanahay qaranka Somaliland doorashada inuu ka dabaalanayo in ka soo baxa uu hogaaminayo ka soo baxa oo ah ilaahay idinki Muuse Biixi Cabdi oo ku guuleysan doona codad cadawga Somaliland ka dhaxiyay ilaahay idinki waxaan ku soo ururinayaa muwaadiniinta Somaliland meel kasta ay joogto farta ugu fiiqaya waxa inoo ballana horseed
oo xisbi ah xamse jaamac yare telefishinka caalamiga Sky Cable TV magaalada Berbera